ugu weyn ee caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa xiran maantay kadib markii ay canshuur ku soo rogtay dowladdu. Maalintii labaad ayuu xiran yahay suuqan. Ganacsatada ka ganacsata suuqa Bakaaraha lagu magacaabo ee ugu weyn caasimadda Soomaaliya iyo gebi ahaanba Soomaaliya ayaa maalintii labaad xiran. Meelaha qaarkood mudaharaadyo looga soo horjeedo canshuurta lagu soo rogay ayaa ka dhacaya suuqa dhexdiisa. Meelaha qaybtoodna waxaa ka hirgalay canshuurta ay soo rogtay dowladdu. Dadka ayaa ka cabanaya canshuurtan lagu soo rogay oo aan meel la haysan. Ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan suuqaas ayaa soo saaray bayaan ay kaga cabanayaan ama aysan doonaynin inay furaan ama shaqeeyo ilaa xal loo helo. Meelaha qaarkood ayaa weli xakiran xaaladdu. Dowladda ayaan weli ka soo saarin warbixin ganacsigan xiran maalintii labaad. Ilaa iyo haatan xal looma hayo ganacsigan iska xiran aan weli xal loo